qoys muslim ah gaari lagu dardarsiiyay magaalada London ee dalkaasi Canada halkaasi oo 4 qof oo qoys wada ahaa ay ku wada geeriyoodeen. ururada muslimiinta u dooda Canada ayaa dalbanaya in la soo afjaro islaam naceeb. haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray hooyadaasi weerarka loo geystay oo sabab la xiriira amnigeeda aanan u xusin magaceeda. ugu horeyntiina waxa uu weydiinayaa sida ay wax u dhaceen. wallahi say wax u dhaceen marka uu sheego anigu iska socday gadaal baa leeyahay yimid qof wax ugu dhuftay ma arkayn anigu markii ilaahay ma ilaa waa dhimanaysa god baa galaysaa ma garatay anigu iska socday gadaal baa leeyahay inta halkaas leeyahay dhagay gadaale baa lay tuuray waan gartay marka meeshii baa ku dhacay wax ugu dhuftay ma arkayn meeshii baa cabaar yaa la fiistiin mid cunuga dhalay baa marka uu wacday telefoon aan watay kadib maxaa dhacay waxa dhacay wiilkii baa qaaday oo dhakhtar geeyay maxay kula tahay in lagu beegsaday aniga ma garanayo wallahi kulliba dadku waa la beegsanayaa bay la tahay dad badan baa la beegsado hadda koor meelaha anaga nagu maadi jireen anagoo iska socono dadku laakiin tan gaadmada gadaal leeyahay yimid anigu ma garanayo wataa booliiska waxay leeyihiin baaritaan aan wadnaa ururada muslimiinta waxay leeyihiin waxa loo maleeyaa inuu yahay nacayb oo islaam maadaama xijaab aad xirneyd aan xirnaa buubu weyn macaan waa i qarsoonay wax yar iga muuqday oo inta shareed xataa baan xirnaa wax amal oo kulligay macaan isku sii days baan gashanaa marka sida ururada muslimiintu ay qabaan in inta shareerkaas iyo xijaabkaas amaba qaabka islaamiga ah ee aad u labisnay darteed in lagu beegsaday ma kula tahay waa tahay waa dhici kartaa because qofaan dambi ka galay ma jiro qofaan wax ku sameeyay ma jiro qofaan magaciisa ma jiro hadda koor aan shareer qabin oo gaarigayga wato iska labisano xijaaban baa sanadkii hore July agostinayada u maleynaya niman saas oo kale ee ataagan mall anagoo joogna baawurkayga baawurgooyeen iga qaadayna waa diideen iyagoo ila diray markaa meeshii ka baxay inta iga horwareegan ay daba galeen baa wiil nin Carabi yimid ninkii baa markaa ayagii la maaday iga celiyay lambarkiisa uu siiyay 20 bay ahayd waa tahay waxa leeyahay dhaawacyo ku soo gaaray oo qofkaasi ku weeraray uu ku geystay ka waran dhaawac ku gaaray iyo hadda xaalkaaga hadda u fiicnaa aniga dhaawac way gaaray hadda xataa dhakhtarka jooga ka sariir xisaaray xagga waliba hore indhaha iyo gafuurka hore oo maaragtay wajiga ilkaha qaar baa soo dhacay laakiin ma soo bixin booskii dhakhtarka habeenkii la geeyay gadaal wuxuu celiyay laakiin dhaawac way gaaray dhiig badan waa iga baxay waan fiicanahay oo kulli cagayga hadda ku soconaya dhacdadan ma aha mid ugu horeysay Edmonton ka dhacaysa adiga hadda aad xustay December sanadkii tagay gabdho Soomaaliya ama haween Soomaaliya la weeraray xijaabka laga jiiday maxay kula tahay in muslimiinta gaar ahaan Soomaalida xijaaban loo beegsanayo wallahi waxay la tahay muslimiinta wax kale ma jiraan ma garanayo anigu muslimiinimadaas islaamnimada wax kale ma garanayo anigu dhawaan magaalada London oo gobolka Ontario ka tirsan qoys muslimiina lagu laayay cunug yar oo ka badbaaday muslimnimadooda darteed dhacdooyin kale oo kala duwan oo badan oo muslim lagu bartilmaameedsanayo dalkan ka dhacay haween ahaan maxaad dareemaysaan absi intee lag ayaa xilligan idin soo wajahayso maadaama xijaaban tihiin inaad maaragtay wadooyinka socotaan arrimahan oo kale maadaama ay soo badanayaan wallahi anaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in anaga nala maarayo nala beegsanayo oo waddankeena marka hore aanu nabadgelyo la'aan kaga nimid sanna aanan nabadgelyo fiican ku haysan oo xoogaa aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen anaga haween ahaan baranooyo oo baqdin badan ay nagu jirto ilmihii u baqayno annagii baqayno inuu hadda xijaaban yahay aan laga leexanay wax badan baan dareemaynaa anagu maxaad u jeedin lahayd haweenka Soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton waxaan u jeedinayaa community-yada Soomaaliyeed inay community-ga muslimka ay ka warhayaan community-yadu ogaadaan caruuraha dumarka ciyaalada kulli la ogaado annagana aanu taxadarno haddaanu community leenahay aanu community-geeni raadsano ku xirnaano wixii nala soo dirsa anaa qarsan wax badan oo aanu qarinaynaa jira annaga community-yaal ahaan Soomaalida dadka Soomaalida rayidka waddanka ku nool wax badan oo la soo dirsa ay qarinayaan baa jira markii runta laga hadlo oo dhibaatada qarsanayaan ma garat fiican marka waxaa fiican dhibaatooyinka inay la xiriiraan oo dadkoodii community-goodii iyo dadkoodii ay la wadaagaan anigu kolley saan qabo aniga ahaan naftayda saan qabo weeye marka anigu kolleyba community ahaan waxaan leeyahay community-yada jira oo Soomaaliduna inay wax ka qabtaan arrintaa
oo dadka la xiriiraan oo ogaadaan dadka oo guryaha tagaan oo dadka ay dadka la xiriiraan dadkuna inay communitygooda ku xirnaadaan. taasi waxay ahayd hooyo lagu weeraray magaalada Edmonton ee dalka Canada. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى وهو دواقي dadka iimaanka leh magac loogu dhawaaqo midka uu qiimaha badan wuxuuna Allah oranayaa dadka Allah iyo aayaadkiisa iyo nabiga rumeeyayow aakhira inay jirto dadka rumeeyayow Allah idin khalqay ka cabsada naxariista alle waxaad ku gaartaan oo Allah idin gaarsiiyana dalba wasiilada ilaahay lagu gaaraa waxa weeyaan iyo waxa Allah raaliga ka yahay waa iimaan iyo camal saalix ah waa diinta islaamka in lagu dhaqmo lana barto wixii ilaah ka xarimay in laga tago wixii alla waajib kaaga dhigana lala yimaado. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu oranayaa ku dagaalama diinta ilaahay sarawqaadkeeda u dagaalamo af iyo adin iyo maal waxa leedin ku bixiya diinta alla inay sara noqoto afkiina ka bayaaniya gacantiina ku difaaca dhaqaalihiina ku bixiya sida hadaad yeeshaan waxa la rajaynayaa